iminkii haatanna waxaynu sii wadanaynaa barashadii carabida ahayd halkaasaynu sii wadanayno kelmadaha carabida ah oo aynu u baahannahay inaynu baranno kelmadda u horraysa waxay noqonaysaa dahaba haddaynu u fiirsanno waa dafadxada ha fadxaha dahaba fadxaba dahaba waa daal fadxa leh iyo ha fadxa leh oo u dhaxaysa iyo ba fadxa leh ama kordhig leh dahaba maxaa kala gooyey deelka iyo ha'da halka ha'da iyo ba'du ay isku xidhan yihiin macnuhu wuxuu yahay deelku xagga dambe ama bidixda xaraf kale lagama wadaajiyo ama lama xidhiidho halka uu inta ka horraysa ama midigta dhanka midigta uu markaasi kala xidhiidhi karo xaraf kasta dahaba waxay la macno tahay waa uu tegey ama galbaday kharaja oo noqonaysa kelmaddii labaad ayaynu iyadana balhigaadinaynaa kharaja waa kha fadxa leh iyo ra fadxa leh oo u dhaxeeya iyo jiim fadxa leh su-aasha isweydiinta leh waxay tahay ra'da iyo jiimku iskuma xidhnaa balse ra'da iyo kha'du way isku xidhan yihiin taa macnaheedu waxa weeye inaanay ra'du aanay bidixda xaraf kale kala xidhiidhi karin balse midigta ama dhanka midigta ay kala xidhiidhi karto kharaja waa kha fadxu leeyahay ra fadxu leeyahay jiim fadxu leeyahay waa sidii kelmaddan ka horreysay aynu barannay ee dahaba ahayd balse waxa ay ku kala duwan yihiin xagga dhawaqa iyo macnahaba halkaasoo ay noqonayso kharaja waa uu baxay dahaba waa uu tegey halkuu ka tegey meel buu ka tegey laakiin kani waxa weeye meeluu ku jiray ayuu ka soo baxayo waa kharaja kelmadda xigta dakhala dafadxada kha fadxa kha dakhala fadxala dakhala waxay ka kooban tahay 3 xaraf waa deel iyo kha iyo laam oo markaasi wada kordhow leh kordhowgaasi waa ka dhigay da'na da' ka dhigay khana kha ka dhigay la'na la ka dhigay oo laamkii oo fadxa leh dakhala waxa weeye macnaheedu gudaha ayuu u galay fataxa oo kelmadii xigtay ah fataxa waa uu furay fataxa waa uu furay fataxa waa uu furay fa waxay ka koobantahay 3 xaraf waa fa iyo ta iyo xa halkaasoo ta'du ay ku jirto dhexda fa'du waxay la xidhiidhay ta'dii iyo xa'dii wixiiba way isqaateen markaa way isku xidhiidheen waayo fa'du waa xuruufta dhan kasta markaasi xaraf kala wadaagi karta sidoo la mida ta'du dhan kasta xaraf way kala wadaagi kartaa oo waa taasoo waxay la wadaagtay xa'dii oo waxay la wadaagtay ta'dii waanay u dhaxaysaa sida halkaa ka muuqata xa'du dhan kasta wax way kala wadaagi kartaa oo dhanka midig iyo dhanka bidix ama dhanka hore iyo dhanka dambaba xaraf way kala wadaagi kartaa ama xuruuf ay mid ka horeeya iyo mid ka dambeeyaba waa ay isku xidhi kartaa balse mar haddii aanu xaraf ka dambaynin xa'dii waxaynu isaga qoranaynaa sidii xa'da keli ah balse ay dhinac kala xidhiidho xaraf kale waa fa fadxa fa ta fadxata fataxa fadxaxa fataxa waa uu furay fataxa wuu furay fataxa wuu furay fataxa wuu furay hadduu doono wuxuu furayaa khasnad xidhnayd buu furayaa hadduu doono albaab xidhan buu furayaa waxaynu hore u soo baranay dahaba wuu tegey kharaja wuu baxa dakhala wuu galay dakhala wuu galay fataxa wuu furay fataxa wuu furay halkaa waxaynu ku haynaa 4 kelmadood oo carabiya waxaana muhiima inuu qofku ku celceliyo akhriskiisa iyo qoraalkiisa si uu ku gaadho inuu aad ugu xafido waayo kelmadahani waa ay ku soo noqnoqonayaan waxaana yihiin luqadda carabida kuwo ka mida oo aasaasi ah la sameeyey wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu